بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo steaki. aan rabaa inaan sameeyo inta waxaan ku haystaa hilib lo insha Allah oo sidaan u gogo'an qafiif ahaan loo soo gooyay insha Allah. waxaana ku garaaci doonaa halkaan haystaan ku garaaci doonaa insha Allah. waxaana soo marinayaa mustard. aan soo marinaa mustard shiidan iyo filfil madow oo shiidan iyo cusbo aan soo marinaa insha Allah. ku soo qasaay markaan garaac bacdi waxaan halkaan ku haystaa basal oo wareeg aan u jaray. intan waxaan ku haystaa barbarooni oo isagana aan saan u soo jarjaray. intan waxaan ku haystaa hal xabbo oo yaanyo ama tomato oo saan u jarjaran. intan waxaan ku haystaa basbaas cagaar oo aan zaidka u kululeen xogaa dhexdhexaadka ah aan haystaa wareeg aan u soo jaray. intan waxaan ku haystaa kabsar caleen. intana laba xabbo tuun oo shiidan aan ku haystaa insha Allah. intaan rabaa inaan isku soo dardo markaan dubo kan ka bacdi aan kor ugu sharaxayaa. aan isku soo noqon doonaa marka halkaan habeena insha Allah aan garaacaya di Ilaahay idmo kaas la socod wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم. isku soo noqod wanaagsan. aan soo garaacay saana ka soo dhigay. This is a slice of beef. I make very thin. I have here a slice of onion. I have here yellow pepper. I have here 1 tomato slice. I have here green chili slices. I have here coriander or cilantro. I have 2 cloves of garlic. And I have here black pepper powder. I have here mustard. And I have here salt. Let's mix inshallah. Isku darno dhamaan. waxaan ku darayaa hal qaado. I'm going to put 1 spoon of pepper. I'm going to take mustard 1 spoon. And little bit salt. wax yar oo cusbo ah. I'm gonna mix them again. isku soo walaaqaya kulligood fasan usoo marmarinaya insha Allah. bas ila socda. Bismillah. waan soo dhameeyay saana ka soo dhib steakiga. I finish it. I marinated for the bisteki. We call bisteki Somalian. It's very healthy. It's very healthy. I have this one grill. waxaan haystaa baashaan ku dubtacni grillka insha Allah. waan saari doonaa. Let's grill it. Bismillah. intuu iga karaayo steakiga waxaan soo diyaarsanayaa ansalatada lagu cuni lahaa insha Allah. alaabtan jimka loogu talagalay qofkii jim caadayo full of protein waaye insha Allah. I will cut for the cucumbers and the salads. It is ready. steakiga diyaar waaye. I will cut in pieces saano kala u jarjaraya insha Allah. alaabtan waxaa samaysan kara wiilasha jimka aado inshallah. people who go in the gym is good for this. is healthy, full of protein inshallah. Bismillah. it's ready. steaki or bruschetta. all is come out like this. saanu kusoo baxay. I put tomato, onions and everything. it's become out like this color. it's so beautiful, mashallah, tabarakallah. it is so nice, mashallah. and tasty, mashallah. sana usoo habeeyay kulli dhammaan intaan kusoo wada habeeyay aan salaatan hoos ku shubay iyo qajaarkii basashii wixii oo dhan diyaar waa. wiilasha jimka aada alaabtan samaysta aad ay u fududahay. laga faa'iideysto insha